الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة في الله، الله تبارك وتعالى بحكمته وعوكل فضلي مخلوقات كيسة آدمها وكل فضلي، ملائكتنا وكل فضلي، dhulka qaybihiisa kala duwan wuu kala fadilay, zamankana wuu kala fadilay, isku mid maaha. waqtiyada ilaahay tabaaraka wa tacaala kuwa ugu fadli badan waxaa ka mid ah bisha ramadaan oo inagu soo food leh, oo inagu soo dhow, oo maalmo kala leeyihiin. إلهي تبارك وتعالى وحو الزمن كأوكل فضلي هي أماكنته حكمة كنت التوحى كمذا إنه أدومدي سكون امتحان السيء وقفا إذا استاذ. هذا السؤال وحيته إشي ما يلوسه له وركيسنيت خيرات كبضنيت إلهي نحريستي صبضنيت انت إنان قلين بسا bisha intaynaan gaadhin maxayna la gudboon, maxaan samaynaa, sideen bisha ku qaabilaa, sideen ku soo dhoweynaa. tilabada koobaad ilaahay inaan barino tabaaraka wa tacaala inuu nabad iyo caafimaad inagu gaarsiiyo. waxaa yeelay salafku ridwaanullaahi calayhim 6 bilood oo ka horraysa bisha ramadaan ilaahay waxay weydiisan jireen inuu bisha gaarsiiyo, laana waa jaanis weyn. in badan oo dadkii walaalaheen ee bishii sanadkii hore bisha ramadaan inala soomay oo inala tukaday ayaa maanta dhulka ka hooseeya, jaaniskan mayna helin. adigana waxaa dhici karaysa maalmaha ramadaan ka laaban in lagu kaxeeyaa dhici karta, in lagula tagaa dhici karta, inaad geeriyootaa dhici karta, inaan jaaniska lagu gaadhsiinin baa dhici karta. sidaas daraaddeed inaad ilaahay weydiisato ilaahay inuu nabad iyo caafimaad kugu gaadhsiiyo. bishu markay dhalatana nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi siduu samayn jiray allah buu weydiisan jiray, ilaahu bisha noogu dhali iimaan iyo ammaan, islaamnimo iyo nabadgelyo salaama, iyo inaad nawaafajiso waxaad jeceshahay oo khayr. qodobka labaad, bisha inaan ku soo dhowayno, ku qaabilno farax, aan ku faraxsannahay khayraadka dhexdeeda yaalla, dembi dhaafka yaalla, aakhira iyo kasabka yaalla, in ilaahay ina gaarsiiyo. maxaa yeelay nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi saxaabadiisa wuxuu ugu bishaarayn jiray ramadaan inay soo gashay. mu'minkuna iyo ruuxa muslimka taacada ilaahay iyo khayraadka wuxuu ugu farxaa si ka badan cuntada iyo cabitaanka iyo shahawaadka sida ugu farxaya si ka badan. sidaas daraaddeed waxaan ku soo dhowaynaynaa ama ku qaabilaynaa farax iyo inaan ku faraxsannahay inuu ilaahay mar kalena soo gaadhsiiyo. qodobka saddexaad ee loo baahan yahay waxa weeye bishii way soo socotaa, waana jaanis weyn in aad qorshaysato ood nadaamsato ood balaan dejisato saad uga faa'iidaysan lahayd. maxaa yeelay hadday ku soo gasho adoon waxba kuu nadaamsanayn, waxba kuu qorshaysnayn, si fudud inay kugu dhaaftaa dhici karta oo aad markaa noqoto qoladii nebigu habaaray sala allahu calayhi waaalihi wasalam. jibriil habaaray baan dhihi lahaa, nebiguna aamiin yidhi sal alla alay wasalam. waa ruux ramadaan u soo galay oo ramadaan dhaafay asagoo loo dembi dhaafin, waa habaaran yahay. malakul jibriil baa habaaray nebi maxamedna sal alla alay wasalam, aamiin buu yidhi, allahu aqbal. si aad uga faa'iidaysato qorsho la imow marka, leanna waxyaalo badan baa inugu tacalluqa. adduunyadii baa inugu tacalluqda, ganacsi baa inugu tacalluqa, xeerihii iyo carruurihii iyo mataalibtii adduunyadaa inugu tacalluqda.
مطالبتا الدنيا إيا كفائديسيغا بشهر رمضان ساد إسوا فتشين لهاي قرشي إيا النظام بيوبا هانتا هذا قرش لهاي مركا وحاول يكون نقول يا وان شح لهاي لو مسورو بان وان ربا بس أو قرش لهاي مثال هذا إن بشهر رمضان عمري ستاد ربتا بشهر دحدة هذا هدي أب ترى هذا بالله بيحكم مسورو بكره بيش صعد كذا وإن القرشة سيدكو عمري سنلا إن الصدقة بحثتها دربتها الصدقة روح يلا ومفضل بدن بكمتها الصدقة دي ماشي كإيمان له وإن السيد دياريزو بيش رمضان إن القرآن كإنت سوقور لما يساعد ربتها سيدات كل لما يله القرشة هذا وإن الدجسو انت بعد مالكي آخرين وقت يده بعد آخرين وإن النظام يقرشة وقت قد طيبسو إن السماء يسوي ويكون كالمينيسا قولك أفرادي وحوي إن الدنيا طبعا أو رنعة يدونيتان طاعدي كتشرت الله تماده محايلة الله تبارك وتعالى أدونك سوء كثير يا قلبك محا قلبك كتشرا محا دونيسا دونيت طاعد مكتاهي قوان مكاية هاي بسوى العياريسا على قدر أهل الحزم تأتي العزائم كل بقوان كابو السيدة ويهي يددالك عضولات ماذا بإذن الله إلهي وحقوق الصينية لكن هذه هذا إسحاق الرسول وقلبك أقول اللبعية وضن قوان لهين سيوح حقوق الصينية ساستردد عزيمة طبعا إلهي تبارك وتعالى السيد روحي طاعد نبئي يددال كل رقمنا يسجن الددال كيس إلهي بأور رمية wuxuu rabay baa loo xaqiijiyaa wase markuu isaga xaqiisa wixii xaqiisa jiray oo dhan uu bixiyo qalbigiisa hogaamiyo go'aankii la yimaado dadaalkii la yimaado Allah tabaaraka wa ta'ala markaas waa kaalmaynaya laakiin adoonku haduu isagu isxakrado yaa wax ku taraya way mar saas daraadeed niyad adag iyo xasiime iyo go'aan adag oo qalbigaaga saad uga faa'iideysan lahayd bisha inaad la timaado qodobka shanaadi waxa weeye loo baahan yahay in aynu baranno bisha ahkaamta ku saabsan soonka ahkaamtiisa salaada habeenkii ahkaamteeda sadaqa haday tahay hadaad umraysanayso lianna cilmiga iyo barashadu asaas waxay u tahay in cibaadadaadu saxanto hadaadan aqoon lahayn oo ilaahay aad ku caabudo jaahilnimana waxa aad samaynayso ma hubtid inaad u samaysay sidii lagaaga rabay wabitaali waxaa dhici karta inaad dadaalayso ha ahaatee camalkaagu uu saxo ka jirin nabigeennana waxaa ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yidhi waxaa badan dad sooman oo soonkooda gaajo iyo oon waxaan ka ahayn aan ka helayn way gaajoodeen wayna oomeen waxse ilaahay agtiisa uma yaal dad waxaa jira habeenkii taagan oo tukanaya oo soo jeed mooye wax kaloo ka helan aysan jirin sayna taasi kuugu dhicin cibaadada saxo salaada saxo soonka sax sadaqada sax umrada sax xajka sax fa'lam annahu la ilaha illa allah cilmiga iyo barashada wuxuu ka horeeyaa wax kasta intaadan hadlin baro intaadan samaynin baro sax wixii ilaahay kugu waajibiyay tabaaraka wa ta'ala hadaad sii weydo oo aad tiraahdo dadkan iska raacaya waan iska sameyn jiray waan soo gaaray siday dad badan yihiin waxaa dhici karaysa maalinta qiyaamada ilaahay inaad u tagto adigoo isla wax badan baa ku yaala oo wixii meesha aad ku tashanaysayba uu noqdo waxa waxba ka jira laana khalad baad ku sameeynaysaa khaladna waad ku socotay mar aadan saxalin saas daraadeed akhri daalaco weydii dhagayso cibaadada ka hor cilmigeeda la imo qodobka xigaayo wuxuu yahay ee loo baahan yahay ramadaan ka hor inaynu la nimaadno waa inaynu toobad keenno dunuubtii hore inaynu ka soo noqono safxa cusub beej cusub inaan ilaahay la bilowno laanna dunuubta oo laga soo noqdo toobad dabca la yimaado toobad dabca inuu adoonku la yimaado qalbigiisay sifaynaysaa qalbigay wasakhda ka qaadaysaa daxashii bay qalbiga ka sifaynaysaa yani toobadu qalbigu markuu sifoobo saafin noqdana wuxuu xoogaysanayaa wuxuu awood iyo xoog u helayaa taacada inuu macaansado soonkii baa u macaanaanaya salaadii baa u macaanaanaysa quraankii baa u dhadhamaya waa iftiimaya waa dhalaalaya
وسخدي قشنكي با كفوغانيا سيكو إيمانيسا توبة كو إيمانيسا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ليبانت أضون كما إلهي وحوكو حري توبة كو حري ساس درادت وحي الدنب أدكو جرت كالأحباح وحي آد سميسي كقومموت كحمو كقبو إلهي نويديسا إنو كودن بالله وحي هركاس أمحو sidaasaa marka waxaad bilaabaysaa nolol cusub bisha ramadaan iyo khayraadka ku macaanaada iyo inaad si fiican uga sahay qaadato ilaahay naxariistiisa iyo barakaadka bisha ku jira saas daradeed tawbad inaynu la nimaadno oo aynu bisha ka hor tawbad keenno ilaahay sidii aynu wanaag fiican uga heli lahayn bisha ramadaan dhexdeeda fursadaasina aynu uga faa'iideysan lahayn sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda allahumma 'ala as-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه لما تحب وترضى يا حي يا قيوم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان bushaaro dadweynow meel kastoo aad dunida ka joogtaan ma doonaysaa inaad kitaabka ilaahay si fudud u barato adiga oo welibana dunida meesha aad doonto kaga sugan markiiska abubakar sadiiq oo si online wax loogu barto waxaad ka helaysaa xifdinta quraanka kariimka ah iyo culumtiisa oo dhammaystiran waxaana markiiska xaruntiisu tahay magaalada Hargeysa adiga oo dunida meesha aad doonto kaga sugan markiiska abubakar sadiiq ayaad quraanka kariimka ah iyo culumtiisa si fudud uga xifdii kartaa والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود haddaba wixii faahfaahina ee intaasi dheer fadlan kala xidhiidh lambarada xagga hoose ku qoran في جنة القرآن